ku soo dhawaada sheeko taxana inoo noqon doonta oo dhacdooyin dhab ah ka warrami doonta waxaa dhacdada tan la kulmay qoraalkana ka sameeyay wariye Maahir Jaamac Aadam anigoo ah Ciise Maxamuud Ciisana waxa aan saarayaa codka sheekada ciwaankeedu waa mulkiilaha qaranka waxaana ay ku bilaabanaysaa sida waa nin dhalinyaro ah oo sita magaciisa iyo kan aabihii oo ka kooban guud ahaan 12 xaraf wuxuu astaanta ciwaankiisa Facebook u isticmaalaa mid ka mid ah calaamadaha qaranka daahan waxaan ku qiyaasi karaa inta u dhaxaysa 25 ilaa 30 sano wuxuu ku hadlaa afka Soomaaliga gaar ahaan lahjada waqooyi oo ereyada qaar sida koonfurta ugu dhawaaqo wuxuu ka mid yahay dhalinyarada bartan Facebook igula saaxiibka ah waliba marka aan daabaco sheeko ama war ku saabsan xasaradaha siyaasadeed ee markaas jira waa ninka ugu walaaca badan ee si qaas ah igala soo xiriira qaybta wada hadallada wuxuu ii muujiyaa mararka qaar wadaniyad badweyn ah marka aan tabiyo dhaliilaha xukuumadda wuxuu igu yiraahdaa si gaar ah kelmado aan ismoodo inaan ahay ruux ardaygiisa ah oo uu waxbarayo mar walba waa nin ku fogan warbixinada ka hadla geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya wuxuu ana iga dhigtay saaxiib dhow ilaa uu gaaray inuu isku dayo wacinta habka aan mararka qaar u fikiro dhowr jeer ayaan isweydiiyay ujeedada qofkan sida dhow ila soo dirsay haddana raba inaan si gaar ah xilliyada qaar uga faaloodo aragtidayda ku aadan waxa ka jira Soomaaliya waxaan aaday profile-kiisa Facebook dhowr jeer waxa ugu badan ee aan ugu tagay waa qoraallo uu sheergareeyay oo dhammaan ka hadlaya wanaagga xukuumadda nabad iyo nolol sidoo kale sawirada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre maalin ayaan kula kaftamay saaxiib waxa tahay wadani laakiin maxaad sawirada madaxda uga reebtay gudoomiyaha baarlamaanka maalinkaas jawaabta qosol buu igu dhameeyay laakiin waxaan u gartay inuusan gudoomiyaha ama afayeenka wakiilada shacabka uusan baaqon muuqaal ahaan waxaan u diray sawirka xildhibaan Jeesow anigoo uga dhigaya afayeenkii wakiilada laakiin ima uusan sixin wuxuuna igu yiri hadal u dhignaa sidan boro odayga naftiisa masalana waan qoslay anna oo waxaan iri saaxiib magaalada ku nooshahay wuxuu igu yiri laasacanood laakiin sida run ma ahan ninka sifooyinkaas leh ma ahan ninka aan rabo inaan siiyo magaca ah mulkiilaha qaranka laakiin waa qayb ka mid ah qisaska xiisaha leh ee aad sheekadan ka dhexiri doontaan waana kan ugu muhiimsan ee ayna dhex mari doonto sheeko aad wax badan ka dhex fahmi doonto waxaan maalin ka mid ah maalmaha aan arkay post ay soo dhigeen BBC Afano Oromo waxaan furay qaybaha hoose ee faalooyinka dadka waxaan arkay saaxiibkaygii wadaniga ahaa oo ku jira dadka ka falceliyay sheeko ku saabsan in Ethiopia ay 19% ku leedahay dekedda magaalada Berbera isaga faaladiisa oo yara dheereed waxaan ka gartay magacyada laba magaalo oo ka mid ah dalkeena Berbera iyo Boosaaso kadib waxaan ka qaaday faaladiisa screenshot waxaana la wadaagay nin aan saaxiib nahay oo aan ku tuhumayay aqoonta luuqadan ninkii saaxiibkay ahaa saacado badan kadib ayuu ii soo qoray fasiraadda qoraalka laakiin anigu waan ku kalsoonaan waayay faaladan ma yeelan karo ruuxii wadaniga ahaa ee aniga iga sii lexjeclaa dalka sidaa darteed waxaan la wadaagay gabadh wax ku barata gobol ka mid ah Oromia kadibna waxa ii soo qortay micno aan ka duwanayn kii uu saaxiibkay ii soo qoray diiday mar kale waxaan la wadaagay nin qudhiisa Oromoda 20 sano la soo dhaqmayay kuna soo waxbartay kadibna isla fasiraadii ayuu ii siiyay waxaan bilaabay inaan si kale u fikiro waxaana sii xoojiyay saaxiibtinimada aniga iyo ninkaas wadaniga ahaa laakiin waxa uu micno ahaan qoraalkaas i bedelay ahaa waa kan aad isweydiinaysaan waxaan dhacdadaas kaga warrami doonaa qaybta labaad ee sheekadan xalqada soo socota waxa aynu ku lafaguri doonaa oo aynu jawaabo ugu heli doonaa su'aalaha gooxaya ee ah aniga iyo ninkan xageen isla gaari doonaa qisadu ma kaligii bay ahaan doontaa mise way ballaaran doontaa ma tahay qiso taabanaysa xafiisyo dawli ah sidee maxaa ay qisada macnaheedu u yahay la soco qaybta labaad